arrimahan waxay soo socdeen waqti aada hadda u dheer dhowr bilood bay soo socdeen waxaan soo abaabulay dumar kala duwan 4 dumar ah ayaa soo abaabulay gabar waa gabar madow ah Tamara ayaa la yiraahdaa gabar Mexican ah gabar cadaan ah iyo gabar muslimada Linda Sarsaar la yiraahdo ayaa soo abaabulay waxyaalaha ay yani u soo abaabuleen waxa kamid ah madaxweynaha cusub ee hadda la doortay hadallo badan oo uu ka dhiibay dumarka xuquuqo badan oo dumarku ay leeyihiin oo uu maxay ama uu hoos u dhigay ama uusan ba yani booskiis oo lista u soo darsanin waa gartay marka Saciido Washington oo kaliya dad gaaraya 200 oo kun ayaa laga yaabaa in ay ka qayb galaan barnaamijka magaalooyin kale oo caalamka ah sida London, Sydney, Berlin iyo Nairobi waxa la leeyahay waa ay ka dhacayaan ama waa ka dhaceen qaarkood Mareykanka New York iyo San Francisco-na waa ay ka dhici doonaan marka barnaamij sidaas u weyn marka oo ay dumarna ka qayb galayaan maxay tahay waxa ay tabanayaan dumarkan runtii banaanbaxaanu wuxuu ahaa banaanbax laga soo shaqeeyay waxyaalaha ay ka cabanayaanna waxaa ka mid ah abortionka ama ilmaha la iska soo yani xaaqayo muslimiinta dumarkooda sida loo magaciisiyey maxay ahayd waxyaalahaas oo dhan oo la isku soo daray waxay u arkaan dumarka xaqooda inuu yahay dadka ama bini aadamka xuquuqdiisa oo kale inuu yahay in maxay ahayd caafimaadkii oo kaleeto dhib badan uu ka haysto marka waxyaalaha ay tabanayaan waxyaalo aad u fara badan waayo marka maxay ugu soo beegeen maanta oo ah maalinta ugu horeysay uu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump uu xafiiska ku fariistay oo uu shaqadiisa bilaabay waxay ugu soo aadiyeen waxay rabaan inay diraan codkooda oo aad u dheer inay soo diraan madaxweynaha cusub si maxay ahayd uu ajandada ugu darsado ayna tusaan inaysan diyaar u ahayn inay mar dambe yani ay xaqooda lagu tunto marka message-ka waxay u gudbinayaan madaxweynaha cusub oo la doortay inay ka siman yihiin dumar oo dhan ka siman yihiin arrintaas inaysan arrin qabata aysan ahayn codkoodana ay ka dhiibtaan aysan yani yeelayn mar dambe in arrintaas oo kale ay ku dhacdo waa gartay marka waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la difaaco daryeelka caafimaadka haweenka xuquuqda dumarka Mareykanka ay u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan iyo guud ahaan waxyaabo ku tacalluq xuquuqda dumarka marka fariinta ay dirayaan maxay ka bedeli kartaa madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump wallahi wadankan waxa uu ku shaqeeyaa waxa xukuma dadka qofka maxay ahayd bini aadamka iyo yani dumarka oo kaleeto ama gruubada intaa la eg oo soo aruursaday arrinta ay yani ay ka dhiidhamayaan waa muhiim madaxweynuhu wuxuu leeyahay cabinet buu leeyahay waxaa jooga senate baa jooga waxaa jooga house baa jooga oo waa golihii wasiirada iyo baarlamaanka iyo maaragtay aqalka baa jooga in marka ay codkooda ay gudbiyaan dadkii ay soo doorteen oo meesha u fadhiyay ay codkoodii gaarsiiyaan madaxweynuhu kaliya wax ma samayn karo inay yani tusaan intaasoo qof oo kala duwan in ay yani aysan yeelaynin dadkii ay soo doorteen ee wasiiradii yani iyaguna ay arkaan arrintan oo aysan waxyaalo badan oo xaqooda ku jira xaqooda ah ay yani ku daraan yani ku darsadaan ajandada ay ku darsadaan madaxweynahana uu arrintaas u dareemo marka codkooda wax badan waa uu ka bedelayaa wadankan waxaa shaqeeya waxa waaye cod baa shaqeeya haddii maanta warkooda uu shaqayn waayo oo codkii ay dhiibteen loo diido in yani uu soo baxo waxaa dhacaysa hadhowtii markii waqtigii la gaaray in la dooranayay in yani ay ka dagaalamaan oo dad badan oo hadda wax u qaban waayey aysan soo bixin beri